xalqadda toddobaad waxay ku bilaabanaysaa Humin isagoo dareensan murugada Heeji. Wuxuu isticmaalay xiriiradiisa oo dhan si uu u caawiyo aabbaheeda. Wuxuu la hadlay saaxiibkiisa oo aabbihiisa uu yahay madaxa garsooraha gacanta ku haya dacwadda aabbaha Heeji. Markii uu guriga ku laabtay, wuxuu Heeji siiyey warqad uu aabbaheeda ka soo qoray xabsiga dhexdiisa. Humin wuxuu islahaa Heeji way ku farxi doontaa, laakiin waxay ugu jawaabtay si qabow, ma rabo inaad mar dambe waxaan oo kale aad ii samayso, ma dareemayo raaxo markaad i caawinayso. Humin oo hadiyad kale u waday ayaa ka xumaaday go'aankeeda. Wuxuu markaas u orday qolka Jiwon isagoo ka codsaday in Jiwon uu hadiyadda u geeyo Heeji, isaga oo aan loo sheegin inay Humin ka timid. Hadiyaddaas waxay ahayd qalabka harqaanka iyo naqshadaynta dharka ee ay Heeji ku riyoon jirtay. Heeji aad bay u faraxday, Jiwonna wuu ka xishooday inuu u sheego runta ah inay Humin ka timid. Jiwon ayaa markii dambe u digay Humin isagoo ku yidhi mar dambe hadiyadahaaga cid kale ha u dhiibin, adigu si toos ah u sii. Haween waxay dhex lugaynaysay beerta guriga iyadoo isleh, waxaan rajaynayaa in Jiwon iyo Heeji uu xiriirkoodu soo hagaago. Jiwon ayaa si lama filaan ah u soo baxay, wuxuuna weydiiyey, ma waxaad u malaynaysaa inaad masayrsan tahay? Waayo Heeji baan daryeelayaa. Wuxuu raaligelin ka siiyey inuu habeenkii dhexda kaga soo tegay, wuxuuna weydiiyey inay maalin kale mar kale wada bixi karaan. Haween aad bay u faraxday, laakiin way ismurugsatay. Markii ay qolkeedii ku laabatay, Heeji ayaa ku tiri, waxaan go'aansaday inaan xiriir cusub la bilaabo Jiwon. Haween markay hadalkaas maqashay, naxdin darteeda ayay meeshii ku istaagtay. Dhinaca kale, xaaska gudoomiye Kangi ayaa tagtay rugta masaajka ee ay joogto eedada Haween. Eedada oo aan garanayn qofka ay u adeegayso ayaa bilowday inay ka sheekayso waxyaabo xunxun. Xaaska gudoomiyaha ayaa aad u xanaaqday, waxayna amartay in shaqada laga ceyriyo eedada. Eedada Jona iyo aabbaheeda waxay ku dambeeyeen inay dhammaantood wada ooyaan maadaama ay shaqadii iyo dakhligii ay waayeen. Heeji oo hadda soo qubaysatay ayaa soo xiratay dhar ay Haween leedahay maadaama dharkeedii uu qoynaa. Humin oo qolka fadhiga dhex lugaynaya ayaa u qaatay inay Haween tahay, wuxuuna gadaal kaga soo booday isagoo habsiiyey. Labadoodii markay isfiiriyeen aad bay u naxeen. Heejina si kulul ayay Humin ugu canaanatay falkaas asluub darada ah. Daqiiqadaas waxaa guriga yimid nin koofiyad xiran oo muuqaal qariib ah leh. Gabadhii shaqaalaha ahayd ayaa Haween ugu yeertay iyadoo tiri aabbaha ayaa yimid. Haween waxay u malaysay inuu yahay ninkii soo koriyey, laakiin markii ay u timid waxay aragtay nin aysan weligeed arkin oo hortaagan. Ninkii isku sheegay aabbaha Haween ee magaciisa ku sheegay Jane ayaa sheegay in isaga iyo hooyadeeda ay mar wada furi jireen fasal lagu barto ciyaaraha. Wuxuu weydiiyey Haween haddii aysan hooyadeeda weligeed uga sheekayn aabbaheeda dhabta ah. Haween markii ay maqashay hadalkaas ma aysan aqbalin ninkan. Beddelkeeda, naxdin iyo xanaaq ayay dareentay wayna isaga tagtay. Waxaa muuqatay in ninkani uusan wax jacayl ah u qabin gabadhiisa, balse uu arkay inay hadda la nooshahay qoys taajir ah, uuna rabo inuu ka faa'iidaysto fursaddaas si uu lacag uga helo. Wuxuu gabadhii shaqaalaha ahayd ka maqlay in nin isku sheegay aabbaha Haween uu yimid, gabadhiina ay oyday oo ay meel aan la aqoon ay aaday. Jiwon oo walwal xooggan dareemaya ayaa baabuurkiisii qaatay si uu meel kasta uga raadiyo. Haween waxay wakhtigaas joogtay goob ay ku kaydsan tahay dambaska hooyadeeda. Waxay dib u xasuusatay ninkii soo koriyey ee wejiga kaga dhuftay dharbaaxo adag, isagoo markaas ku qaylinayay inuusan rabin korinta ilmo uusan dhalin. Iyadoo fiirinaysa sawirka hooyadeeda ayay iyadoo ooynaysa tiri, hooyo, fadlan ii sheeg inay tani been tahay. Jiwon ayaa ugu dambayntii helay Haween, isagoo arkay xaaladda ay ku jirto ayuu qalbiga xanuunay. Haween ayaa weydiisay sababta uu halkan u yimid, isna wuxuu ugu jawaabay, waxaan ka walwalay inaad keligaa ooydo ama aad xanuunsato. Markii ay isku dayday inay isxoojiso oo ay tiraahdo waan fiicanahay, Jiwon ayaa si lama filaan ah hab u siiyey, isagoo ku yidhi, waxba ha dhiibin, ooy intaad rabto, halkan ayaan kula joogayaa. Haween oo muddo dheer xanuunka iyo murugada qarisay ayaa markiiba oohin la qaraxday, iyadoo dareentay in qof fahmaya uu ag taagan yahay. Jiwon ayaa u sheegay Haween inuu isagu si fiican u fahmi karo dareenkeeda. Wuxuu xasuusiyey in sanad ka hor uu Johnson u yimid oo uu u sheegay inuu yahay wiilka uu awowga u yahay gudoomiyaha, magaciisuna yahay Kangi Jiwon. Jiwon weligiis ma arkin aabbihiisa, hooyadiisana ugama sheekayn, sidaas darteed naxdinta Haween haysata isaga ayaa horay u soo maray. Labadii qof ee isku nolol iyo masiir u ekaa waxay fadhiisteen inay wada hadlaan, taas oo ka yaraysay murugadii qalbiyadooda ku jirtay. Subaxii xigtay, Haween waxaa soo wacay maamulka xabaalaha, waxayna u sheegeen in qarashkii bishaan labalaab laga dhigay. Waxay aad ula yaabtay markii loo sheegay in ninkii isku sheegay aabbaheeda uu horay u bixiyey lacagtaas. Tani waxay kor u qaaday shakigii Haween, iyadoo isweydiinaysa sababta uu ninkan lacagta u bixiyey isagoo deymo lagu leeyahay. Iyadoo fikirkaas ku dhex jirta ayay si lama filaan ah u maqashay codka Siwon oo bannaanka ugu yeeraya, isagoo raba inuu wax muhiim ah u sheego. Waxaa soo baxday in Siwon uu Haween u kariyey baasto si uu uga farxiyo. Isagoo daawanaya iyada oo cunaysa ayuu walaac ka muujiyey xaaladeeda. Wuxuu yidhi, mar walba adiga ayaa isku daya inaad xalliso dhibka qoyskeena, laakiin waxaan dareemayaa in aniga iyo walaalahay aanan waxba ku qaban karin. Haween ayaa Siwon u sheegtay inay fiicnayd shalay sababtoo ah Jiwon ayaa u yimid. Waxay tiri, Jiwon mar walba wuu i burin jiray, laakiin waxaa laga yaabaa inuu yahay qof naxariis badan. Siwon isna wuxuu ku raacay in Haween ay u qalanto inay ka shaqayso guriga. Markii ay Haween cuntadii dhammaysatay, waxay la kulantay Humin oo derbiga ku sii jeeda. Humin ayaa si kaftan ah u yidhi, Siwon aad ayuu kaaga walwalsan yahay, laakiin waxaan u sheegay inaad tahay gabar aad u xoog badan. Isagoo xasuusanaya markii uu habsiiyey Heeji isagoo u malaynaya inay Haween tahay, ayuu si xanaaq leh Haween ugu yidhi, dharkaas iskuulka mar dambe ha xiranin, waa dhar aad u fool xun. Isagoo xishoonaya ayuu markiiba goobta ka cararay. Jiwon ayaa maqalay
makhaayad kula kulmay ninkii isku sheegay aabbaha haween. Kadib markii uu dhageystay hadalladiisa dhowrka ah, Jiwon wuxuu ninkii siiyey lacag uu cunto iyo dhar ku soo iibsado. Jiwon wuxuu kaloo siiyey lambarkiisa isagoo yidhi haddii aad wax caawinaad ah u baahatid lambarkan soo wac. Jiwon wuxuu rabay keliya inuu gabadha uu jecel yahay ka farxiyo isagoo daryeelaya aabbaheeda. Johnson ayaa ogaaday in xaaska gudoomiye Kangi ay si qarsoodi ah ula kulmayso qareenkiisa. Qareenka ayaa siiyey nuqul ka mid ah dardaaranka gudoomiyaha. Markii ay qareenkii kala tageen, Johnson ayaa hooyadiisa hor istaagay isagoo ku yidhi miyaad iska dhigtay qof aan wiilkeeda aqoon 10 sano kadib lacag darteed. Hooyadiisa ayaa si dhiiranaan leh u weydiisay ma waxaad weli daryeelaysaa wiilashaas aan waxtarka lahayn kadib markii gudoomiyuhu uu dhinto. Johnson ayaa si kulul ugu jawaabay ha iska dhigin qof iga walwalsan. Haddii aad rabto inaad noloshayda dib ugu soo laabato, qaabkan ha u isticmaalin. Haween ayaa aabbaheeda Jane ugu yeertay cunto. Inkasta oo uu lacagtii Jiwon siiyey uu ku khamaaray ciyaaraha, haddana wuxuu haween ugu faanay inuu shaqo ku mashquulsan yahay. Haween oo naxday ayaa rumaysatay. Jane wuxuu iska dhigay qof naxariis badan isagoo leh anigu iyo hooyada waxaan ahayn saaxiibo jaamacad, dhibaatooyin badan ayaana na soo wada maray. Wuxuu u sheegay inuu hadda keliya uu u yimid sababtoo ah gurigiisii ayaa gubtay, dayn badanna waa lagu leeyahay, isagoo islahaa markaan nolosha deganaan ka helo ayaan gabadhayda raadin doonaa. Haween oo aad ugu naxday hadalkiisa ayaa tiri halkan igu sug, wax baan soo qabanayaa. Haween waxay aaday dukaan si ay dhar cusub ugu soo iibiso, laakiin markii ay dib u soo laabatay waxay aragtay muuqaal naxdin leh. Jane wuxuu si qarsoodi ah u baarbaarayay boorsadeeda si uu lacag uga dhex helo. Markii ay soo gashay waxay si dhow u weydiisay iyadoo ku tiri weli dhibaato dhaqaale maa ku haysata. Jane isagoo u malaynaya inuu lacag heli doono ayuu si weyn u dhoola cadeeyey. Jane markii uu arkay haween markiib wuxuu bilaabay inuu ka cawaado lacag la'aan, wuxuuna ka codsaday haween inay siiso lacag badan. Markii ay haween u sheegtay inaysan haysan lacag intaas leeg, wuxuu kula taliyey inay weydiisato Jiwon. Haween oo la yaaban sida uu ninku ku bartay Jiwon ayuu ugu jawaabay inuu si kama ah kula kulmay guriga weyn. Wuxuu haween u sheegay in Jiwon uu arko iyada qof gaar ah maadaama uu yahay taajir deeqsi ah, uuna lacag siiyey isaga si uu haween ugu soo iibiyo cunto macaan. Haween naxdin iyo xishood ayay la dhiman gaartay markay ogaatay in ninkani uu ku dhiiraday inuu lacag ka qaato Jiwon. Iyadoo xanaaqsan ayay goobta ka tagtay. Markii ay guriga ku laabatay, haween waxay hor istaagtay Jiwon. Waxay weydiisay ma waxaad iigu naxariisatay inaan ahay qof faqiir ah. Waxay u sheegtay inay u malaysay inay isku xaalad yihiin kadib markii uu uga sheekeeyey nolosha aabbihiisa, balse ay hadda ogaatay inay ku qaldanayd. Anigu si lama filaan ah kuma noqon taajir adiga oo kale ah, mana haysto fursad aan kaga cawdo nolosha, ayay tiri iyadoo codkeedu dheereynaysa. Waxay ka codsatay inuu faraha kala baxo arrimaheeda gaarka ah. Jiwon wuxuu soo xasuustay in aabbaha haween uu horay u soo wacay isagoo ku andacoonaya inay haween rabto inay guri ka ijaarato magaalada, balse ay xishoonayso, sidaas darteedna uu weydiistay Jiwon inuu lacagtaas ka bixiyo. Jiwon wuxuu markaas ogaaday in Jane uu isaga shirqool u dhigay. Jiwon wuxuu aaday goobta shaqada ee Jane. Wuxuu maqlay saaxiibadiis oo weydiinaya halka uu lacagta ka helay, isaguna uu u faanayo inuu helay qof maalgeliya. Jiwon xanaaq ayay indhihiisu la guduuteen. Dhanka kale, Humin wuxuu dib u xasuusanayay caruurnimadiisii iyo walaalkii Heji. Wuxuu soo xasuustay in isagoo la ciyaaraya walaalkeeda uu baabuur dhuftay wiilkii, taas oo ah sababta uu u dareemayo dambiilanimada weyn ee ka dhigaysa inuu Heji iska fogeeyo. Haween waxay la soo baxday dhammaan lacagtii u kaydsanayd si ay ninkan u siiso. Waxay u sheegtay in lacagtan aysan ahayn ijaar guri, balse ay tahay lacagtii uu ka bixiyey maamulka xabaalaha hooyadeeda, ayna hadda u celinayso. Ma aqbali karo inaad aabba ii tahay, ayay si cad ugu tiri. Markii uu Jane uu isku dayay inuu beeniyo, waxaa soo galay Jiwon isagoo miiska soo saaray baqshad ay ku jirto natiijada baaritaanka DNA-ga. Ka hor inta uusan Jane fiirinin, haween ayaa baqshadii daftay oo jeexjeexday. Waxay tiri uma baahni inaan fiiriyo, waayo waxaan aaminsanahay hooyaday. Hooyaday marnaba ma jeclaan lahayn nin adiga oo kale ah. Waxay u sheegtay ninkii inuu qof qaldan lacag ka raadiyey, waayo iyadu waa keliya shaqaale, xiriir dambena uusan ka dhaxayn doonin. Markii uu Jane ku andacooday in gurigii uu ka gubtay, noloshiisuna sidaas ku burburtay, haween waxay ugu jawaabtay si kulul dadku maalin kasta way dhimanayaan sidii hooyaday oo kale, laakiin noloshoodu ma duminin. Qofka keliya ee noloshaada dumiyey waa adiga laftaada. Haween markii ay ninkii isku sheegtay aabbaheeda ka tagtay iyadoo xanaaqsan, Jiwon ayaa ka daba tegey. Si uu uga saaro murugada, wuxuu u kaxeeyey meel degan oo hawo nadiif ah leh. Labadoodii waxay ku dhex lugeeyeen dhul doog ah. Markaasuu Jiwon siiyey haween sanduuq yar isagoo ku yidhi kani waa hadiyad aad u qaali ah. Markii ay haween sanduuqii furtay, waxay aragtay inuu maran yahay. Jiwon oo dhoola cadaynaya ayaa yidhi waa qalbigayga. Haween oo u malaynaysa inay kaftan tahay ayaa damacday inay iska baxdo, laakiin Jiwon ayaa gacanta qabtay oo u sheegay runta isagoo ku yidhi maalintii jacaylka adduunka nacnac ayaan kuu soo iibiyey, balse waa uu iga dhalaalay. Heji ma aha qofka qalbigayga ku jirta ee waa adiga. Isla markiiba Jiwon ayaa si dhow ugu dhawaaday haween, iyaduna si kal iyo laab ah ayay hab u siisay. Labadoodii waxay halkaas ku xaqiijiyeen xiriirkooda jacaylka ahaa. Markii ay guriga u soo socdeen iyagoo gacmaha ishaysta, haween waxaa soo wacday saaxiibteeda Yangi iyadoo qaylinaysa, misana ku tiri maxaad iigu sheegi weyday inaad Siwon shukaansato. Haween oo la yaaban waxa dhacay ayaa internetka gashay. Waxayna aragtay in la baahiyey sawirro ay wada fadhiyaan iyo hees cusub oo uu Siwon u qoray iyada. Jiwon markii uu arkay sawiradii, masayr ayaa wejigiisa ka soo muuqday. Inkasta oo ay haween isku dayday inay u sharaxdo inaysan waxba ka jirin, Jiwon ayaa si kulul u yidhi waxaad u malaysaa inaad aad isugu dhowdihiin, sawiradan qarsoodi
qarsoodiga ahna waxay muujinayaan inaad tihiin lamaane isjecel. Haween waxay ka codsatay Jiwon inay xiriirkooda sir ka dhigaan, taasna waxay ka sii xanaajisay Jiwon. Markii ay guriga yimaadeen, waxay la kulmeen gudoomiye Kangi oo aad u xanaaqsan, isagoo markaas sugayay. Wuxuu Haween iyo Siwon weydiiyey inay run tahay xiriirkooda. Siwon ayaa markiiba beeniyey misena yiri waa warar been ah oo la buunbuuniyey. Gudoomiyaha oo weli ka shakisan in la khiyaanayo ayaa soo xasuusiyey Haween heshiiskii bilowga. Xusuuso sharciga koowaad waa ka mamnuuc inaad shukaansato mid ka mid ah saddexda wiil ee aan awowga u ahay. Haddii aad jebiso sharcigaas, waa inaad guriga ka baxdaa. Jiwon oo meesha taagnaa aad ayuu u dhibsaday markuu maqlay sharcigan, isagoo og in hadda uu isagu yahay qofka dhabta ah ee jacaylka la wadaaga Haween. Muuqaalka like saar haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato janaalka, subscribe dheh, gambaleelka furo si aad u hesho muuqaaladayda xiga. Mahadsanid.